12 shay oo aysan gabdhaha ka ogeyn ragga muhiim ayuu ku yahay muuqaalkani daabo haddii aad dhamaysatana sii sheer garay. Kow, ragga maseerka badan waa kuwa ugu jaceylka badan ragga oo idil. Gabdhaha ay guursadaan marnaba kama dheeraadaan. 2, ragga baqiilada ah waa kuwa ugu liita ragga mana lagu soo dhaweeyay ragga dhexdooda. Dumarkay guursadaanna waxay ku noqdaan musiibo. 3, ragga bidaarta leh waxay iska dhigaan masuulo balse way ka naxariis badan yihiin ragga kale. 4, ragga dumarka kala hormara sheekada iyo shukaansiga jecelna markasta inay u sheekeeyaan waa mashaqaystayaal aan hawl lahayn. 5, ragga caloosha leh inta badan ma ah taanjiriin balse waxay badsadaan cunnada halka ay dumarka u maleeyaan inay yihiin kuwa lacag leh. Ragga maalin walba labis cusub iyo dhar cusub isku soo sawira waxay u badan yihiin rag ku soo labista dharka asxaabtooda ama waxa loo yaqaan tabalka. 7, ragga taagan xaflad walba waxay raadiyaan magac iyo masuul balse waa kuwa ugu liita ragga dhexdooda waxaana loo yaqaan kulunji. 8, ragga wadaadada inta badan waxa loo maleeyaa in aysan u dumarka ay qabaan haddana waa kuwa ugu guurka wanaagsan naagaha ay guursadaanna kama tagaan dhexdoodana furin kama dhaco. 9, ragga lacagta leh waa kuwa ugu walwalka badan ragga dhexdoodana mana ahan kuwa gacan furan oo wax laga helo walow ay dumarku jecel yihiin. 10, ragga meel dhaxaadka tahantidooda waa kuwa ugu deeqsisan ragga oo dhan. 11, ragga ugu shukaansiga badan waa ragga ka shaqeeya maqaayadaha iyo goobaha lagu iibiyo alaabaha lagu qurxiyo guryaha haddana waa kuwa ugu badan ee loo yaqaan wax matarayaasha. 12, ragga ugu sharafta badan ragga oo dhan waa kuwa ugu dhaqanka wanaagsan dumarka waana kuwa dumarka ay u yaqaanaan asxaabul aqli. Qodobadan aad kor ku soo aragtay mid kamida ma isku aragtay adiga ama mid adiga ku qoseeya ma ka dhex aragtay mise ma jira qof aad ku aragtay qodobadan kor ku xusan midkood haddii aad ka heshay saaxiibadaada la wadaag ama mention ku dheh qof aad jeclaan lahayd inuu kula daawado muuqaalkani.